kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh oo markale barnaamijkeena falqaynta dunida warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda gaanka caalamka oo dhan qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena waxa ugu weyn daawadayaal dawladaha isku tagay Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia oo dagaal ka dhana Ilhaan Cumar ku dhawaaqay dhinaca warbaahinta iyaga oo aflagaadooyin waaweyn huwiyay gabadhaasi dalka Turkiga ayaa garood sawir ku dhawaaqay inuu talaabo military ku dhaqaaqi doono isla markaana halka uu weerarayo ayaa ciidankiisa gordhow lagu amri doona dalkaasi Iran hogaamiyahooda ruuxiga Ayatollah Ali Khamenei ayaa isaguna waxa ka digay wuxuu ugu yeeray dagaal sokeeye oo la doonayay in dalkaasi uu ka qarxo wadamada ka riixayo Mareykanku wuxuuna u sheegay shacabkiisa inay arrintaasi ka digtoonaadaan qodobadaas iyo kuwa kale daawadayaal ku maqli doontaan wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda waa 13 December 2018 waa mar kale barnaamijkeena falqaynta dunida waa maalinimo khamiis bari hadii alla idmo falqaynta waxay noqon doontaa qorshaha iyo waliba loolanka dhinaca siyaasadda iyo waliba khilaafka xooggan ee baarlamaanka iyo madaxweynaha u dhaxeeya iyo waliba arrintaas mushinka halka uu sal ku leeyahay xoog waaweyn iyo warbixino iyad ku daawan doontaan iyo dabcan falanqayn daawadayaasha qiimaha leh ma ogaanina hadii alla idmo daawadayaal inaad markaasi u dhagtaagtaan aan ku siqo wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda markaan aan ku bilaabo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa jooga magaalada Doha ee xarunta dalkaasi Qatar isagoo doonaya inuu ka qayb galo madasha Doha ama kulanka loo yaqaano Doha Forum waxa wararku sheegaya in ra'iisul wasaaruhu sidoo kale uu la kulmi doono madax sarsare oo ka tirsan dawladda dalkaasi Qatar inta uu joogo halkaasi kolka uu ka qayb galo kulamada waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay Mr Khayre xubno uu ka mid yahay wasiir ku-xigeen iyo waliba xubno kale oo dawladda dalkaasi Qatar ka tirsan iyadoo dawladda Qatar ay sidoo kale ay kulan uu la yeelan doono baa la sheegaya madaxda dalkaasi kolka uu soo dhamaado kulamada wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya kulanka ra'iisul wasaaraha ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaruhu uu dawladda dalkaasi Qatar uu uga warbixin doono xiisadda siyaasadeed ee haatan dalka ka taagan iyo waxa ka soo markaasi halka ay salka ku hayso iyadoo la iska wareysan doono waxyaalaha ay dawladda dalkaasi Qatar ay ka qaban karto arrintaas halka dagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda gaanka caalamka oo dhan ee magaalada Cape Town ee dalkaasi South Africa ama Koonfurta Afrikana waxa ay gudigeeda ama golaha deegaanku ay sheegeen in aysan ayagu go'aan ku gaadhin ama uu ahaa war been abuur ah warka baraha bulshada lagu soo qoray ee sheegay in magaaladaasi laga mamnuuci doono aadaamka ama wicitaanka salaadaha waajibaadka ah ee dadka muslimiinta ah ay sameeyaan kulan degdeg ah oo ay gudiga culimada hay'adda Muslim Judicial Council ama MCJ ay la yeesheen gudiga ama maamulka degmadaasi ee heer markaasi golo deegaan ayaa waxa kulanka kolkii uu soo dhamaaday lagu sheegay in wararka lagu soo qoray baraha bulshada ee sheegayay in kolkii cabasho loo geeyay golaha deegaanka ee magaaladaas isla markaana lagu eedeeyay dadka muslimiinta in dhawaaqoodu uu dadka dhigaha qarxinayo ay taasi been noqotay balse waxa ay sheegeen gudiga muslimiinta ee halkaasi ka qayb galay kulanka afyeen u hadlay ayaa wuxuu sheegay in la isla gartay in heerka la ogol yahay in uu noqdo dhawaqa adimaada ama baaxadka codka ka soo baxaya mikrofoonada waaweyn ama amplifier-rada masaajidada lagu xiro lagu simo ama lagu saameelo inta aadanuhu qaadi karo ayaa lagu yiri sida uu sheegayo afayeen u hadlay gudigaasi muslimiinta oo leeyahay Sheikh Isaaq Dalib Mr Dalib ayaa waxa uu sheegay wakaalada wararka ee dalkaasi Turkiga Anadolu Agency in ay haatan islaam garteen iyaga iyo gudiga magaalada Cape Town in ay dadka muslimiinta ah ay xor u yihiin isla markaana ay sii wada karaan adbaadooda iyo habdhaqanka caadiga South Africaanku waxa ay yihiin dad markaasi isku dhex jira oo diimahoodu ay yihiin ayaa la yiri kuwo u xor ah sidoo kale waxa jira ayaa la yiri qawaaniin loo dejiyay oo dhinaca suurtagalnimada in maadaama dalku uu yahay dad diimo kala duwan dadka jooga ama ku dhaqan ay yihiin in la iswaafajiyo isla markaana ay salaada wicitaanka muslimiinta la sugu wacayo ay noqdaan kuwa aan xadidnayn laakiinse ku saameelan ama ku cabiran baalay halbeeg aan dadka qalbigooda waxba yeeli karin ama aan dadka markaasi dhibi karin ayuu yiri ku-xigeenka madaxa markaasi hay'adda muslimiinta ama hay'adda culimada muslimiinta ee u qaabilsan dadka muslimiinta ee dalka South Africa oo leeyahay Sheikh Riyad Fatar Mr Fatar waxa uu sheegay in ay magaaladan dadka muslimiinta ay deganaayeen muddo 350 sanadood isla markaana ay ku leeyihiin goobo markaasi taariikhi ah iyo goobo waaweyn wuxuuna sheegay in muslimiinta ugu badan ay ku dhaqan yihiin galbeedka magaalada Cape Town dadka dalkaasi ku dhaqanaya South Africa oo gaaraya 57 milyan oo ruux ayaa dadka muslimiinta waxay ka yihiin 2%. halka dagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay warbixinada dhinaca diblomaasiyadda gaanka caalamka oo dhan daawadayaasha qiimaha leh dawladaha dalalka Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia warbaahintooda kuwa dawladdu leeyihiin iyo mas'uuliyiinta dawladda qaarkood ayaa waxa ay weerar aflabadi ku qaadeen gabadha
Soomaaliyeed ee haatan haysata dhalashada Mareykanka isla markaana ku guuleysatay aqalka Congress-ka ee Ilhaan Cumar la yiraahdo baraha Twitter-ka barta Twitter-ka oo barta ugu weyn ee ku dagaalamaan warbaahinta ama ay ku dagaalamaan dadka u ololeeya Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz oo loo soo gaabiyay magaciisa MBS iyo waliba MBZ oo asagana la yiraahdo Mohammed bin Sayid ayaa waxa ay haatan weerar afka ku qaadeen gabadhaas waxyaalaha yaab kale halkaas ka dhacay xusida mudan waxa kamid ah in Twitter-rada qaybaha ama linkiyada la soo dhigay uu mid kamid leeyahay TV-ga la yiraahdo Al Arabiya ee ku hadla afka dawladda boqortooyada reer Saudi Arabia oo dhaleecayn xooggan loogu geystay Ilhaan Cumar sidoo kalena ay dad kale oo markaasi caan ay gabadhaasi ay cambaareen xooggan u geystay nin la yiraahdo magaciisa la yiraahdo Amjad Daha oo kamid ah taageerayaasha waaweyn ee u ololeeya Mohammed labada MBS ama MBS iyo MBZ labada nin ee kala xukuma sida dadban u kala xukuma labada dal isku tagay Imaaraadka Carabta iyo dalkaasi la yiraahdo Saudi Arabia ayaa waxa uu soo dhigay Soomaalida u dabaaldegaysay gabadhaasi ayadoo oo markaasi runtii ciyaaray dhaanto wuxuuna yiri tan waa wixii ugu horeeyay Ilhaan Cumar ay samaysay waxaan kaloo idin sheegayaa ayuu yiri gabadhan hooyadeed waxa weeye buuri xuuti ama waxay hooyadeed wax xuutiyad buuri aabheedna wuxuuna horeysiyay waliba hooyadeed asagoo markaasi doonaya in uu ku soo jeediyo indhaha dadka Carbeed gabadhaasi gaar ahaan kuwa markaasi xuutiinta is hayaan ayuu yiri hooyadeed wax xuutiyad aabheedna waa Soomaali sidaa daraadeed wuxuu yiri markay kursiga ku guuleysatay oo ay ku soo baxday buur xisbiga dimuqraadiga waxa ay sheegtay in ay marka ugu horeysa ay ka soo horjeeso doonto ayay talaabooyinka Sacuudiga ay wadaan ee buuri ayuu yiri ee dib u dhiska ah ee ka wadaan dalkaasi Yaman ee يعني dhinaca wanaaga waxyaala wanaaga wadaan sidoo kalena waxay taageeri doontaa ayuu yiri in dib loo soo nooleeyo guga Carabta ayuu yiri sidoo kale waxa ay soo bandhigtay ama ay miiska soo saartay wili qadiyada Yaman iyo weerarada markaasi halkaas ka soconaya hawlgal halkaas ka soconaya iyadoo weerar toos ah ku qaaday buuri magaalada Riyadh oo la jeedo dalka Saudi Arabia sidaasi waa waxa iyadoo ay tiri ayuu yiri arinta markaasi ayaa u muuqata in ay markaasi hormasalaaday isla markaana ay joogsiba diiday oo ay dadka Carbeed ee ayagu u ololeeyay MBS oo qarkood mas'uuliyiin yihiin ayadoo sidoo kalena xataa MBS laftiisu uu weerar ku qaaday gabadhaasi balse laga saaray Twitter-ka qoraalkiisa uu qoray aynu hayno ayaa haatan waxa Al Arabiya ay soo dhigtay waxay yiraahdeen dagaalka siyaasadeed ee dimuqraadiyiintu ay uga soo horjeedaan aqalka Republicaanka ama xisbiga Republicaanka ay doonayaan inay ku xukumaan ama kula wareegaan Congress-ka waxay ku hogaamisay ururkaas dimuqraadiga in ay miciin bidaan siyaasiyiin islaamiyiin iyo dhaqdhaqaaq islaamiyiin ah si ay u soo celiyaan awoodii ama controlkii ay ku lahaayeen dawladda sidaa daraadeed waxay riixeen ololayaal ama musharaxiin ayaa la yiri muslimiin ah gaar ahaan kuwa laga tirada badan yahay ee bulshooyinka soo galootiga ah ee minority-ga ah baa la yiri iyo dumarka ayagoo arrintaasi naf ka biday taasi waxay ka dhigan tahay ayaa la yiri guusha ay gaadhay Ilhaan Cumar oo ahbay yiraahdeen qof aan u daneynayn Saudi Arabia weerarada lagu qaaday ee dhinaca warbaahinta ee madhawaqa ay ku qaadeen ee weerarka dhinaca markaasi ayaan haba yartay lagu soo darin gabadha Carbeed ee iyadu ka soo jeeda dalkaasi Falastiin ee leedahay Rashida Dalib taasoo iyada oo isku xisbi ay ka soo baxeen sidoo kalena ay aad isku afkaar u yihiin iskuna dhow yihiin ayaan haba yaraatee la xusin isla markaana aan waxba laga sheegin taasoo muujinaysa hadalkan inuu yahay cunsuriyad iyo waliba dagaal toos ah oo gabadha Soomaaliyeed ka dhana laguna soo qaaday ilaa hooyadeed iyo familka ama qoyskeedina la gaaray nin la yiraahdo markaasi Ahmed magaciisa la yiraahdo Ahmed Faraj ayaa wuxuu isaguna barta Twitter-ka ku soo qoray wuxuu yiri guushan muslimka ee kursiga Congress-ka waxa ay gabadhan ballan ku qaaday ayuu yiri in ay la xisaabtami doonto ayuu yiri boqortooyada oo la jeedo Saudi Arabia waxa ay sheegtay in ay ku qaadi doonto ayuu yiri la xisaabtan dagaalka sharciga ah ee Yaman ka soconaya ayuu yiri wuxuu yiri waxaan la yaabanahay dadka u dabaaldegaya buu yiri qoftan cugdadu dilootay buuri ee wuxuu yiri sidoo kale buuri qof markaasi doonaysa in ay dadkeeda ka argoosato isagoo ku tilmaamay in ay tahay qof cugdad u dhalatay gabadhaas
ninkaas ayaa wuxuu ka mid yahay dadka sida weyn uga ololeeya MBS sidoo kalena MBZ uga ololeeya barta Twitterka waana la taliyaasha waliba dhinaca social media ee labada nin ee dadka weerarada ku qaada ahaana dadkii ay Jamaal Khashoggi iyo Umar ninkii loo jiray Umar Abdulaziz ay aad uga cabanayeen oo kale oo runtiina raacyo badan haysta balse nin isaga la yiraahdo Ciyaad al-Baghdadi ayaa arinta aad iyo aad oo la fajacay isla markaana wuxuu mid u soo qaatay Twitterada lagu weeraray gabadha Ilhaan Umar isaga oo soo qaatay ama soo sawiray mid uu soo dhigay MBS laftiisu balse saacad kadib laga saaray wuxuu yiri MBS wuxuu sawirkii Ilhaan iyo caydii uu Ilhaan ku soo xardhay ama uu sawirka dhexdiisa ku soo qoray uu dib uga saaray waxaan si xasuustaa buu captionkii ama qoraalkii sawirka dhexdiisa waa captionka waxa la yiraahdaa qoraalka sawirka ku dhex yaala ayuu yiri waxaan xasuustaa ayuu yiri hadaladii uu soo qoray isla markaana waxaan soo koobiyay buu sidii uu hadalka u dhigay waa Amir Mohammed bin Salman bin Abdulaziz wuxuu yiri ayuu yiri waa hadalkii MBS wuxuu yiri markasta oo aad iibsato ayuu yiri adoon waa inaad sidoo kale aad la iibsataa ayuu yiri ul maxaa yeelay buu yiri adoonku mar walba wuu cuqdad badan yahay wuuna dhaga adag sidaad raadeed waad u baahnaa doontaa usha mar walba waxaan u arkaa ayuu yiri markii laga saaray sawirkan iyo qoraalkan meesha in ay tahay ayuu yiri dabeecad xumada iyo dhaqan xumada MBS sidoo kale waxayna tusaysaa buu yiri ereyadiisa ama caalamka waxay tusaysaa buu yiri bal waxa uu u taagan yahay MBS iyo aqligiisu sida uu yahay in qof markaasi gabadh markaasi Soomaali ah oo muslimad ah buu yiri sida loo caayo ayuu yiri Ciyaad al-Baghdadi oo hadalkaasi aad uga carooday haba yaraatee gabadhan ayaan ka jawaabin iyadoo inta badan lagu soo sheergareeyay qoraaladan qaarkood ayaan haba yaraatee ka jawaabin isla markaana aan dhig jalaqsin inta badan dadka Carabta ah ama dadka Carbeed badankoodu Soomaalida waxay yaqaanaan dad cabiid ah oo ay wala jeedaan adoon ayay la jeedaan waxaana ka tarjumaysaa sida runtii waliba dadka kibray ee qaarkood sidoo kale yihiin inkastoo Soomaalida dhexdeedu ayagu is qabyaaladeeyaan oo runtii ay aad isku kala guraan kama jawaabaan arrimaha dalalka kale ay runtii ay ku soo qaadaan iyo weerarada dadkooda sida tooska loogu soo qaado ama mas'uuliyintooda ama qof ayaga u dhashay hama uu xumaado hama uu samaade bal waaba qof guul gaaray oo runtii aqalkan Congress-ka dalka Mareykanka ka fadhiistay waxayna muujinaysaa in labadan gabdhood oo xataa gabadha Soomaalida iyo gabadhan kale ee Falastiiniyada inagoon midnaba ku xad gudbayn haddana gabadha Soomaalida waxay basaytaa khamaarkii oo wali dhaqankii ayayba ka muuqda runtiina ilaa xad waa qof Soomaalinimadan aad ugu faanta balse waxa fajicis ah weerarka inta leeg ee warbaahinta caalamka oo waliba ka sheekeynayso waxyaalaha yaab kale waxa kamid ah warbaahinta waaweyn ee caalamka ayaa arintaasi xataa ka hadlay oo kamid yahay TV-ga TRT la yiraahdo dalkaasi Turkiga iyo waliba warbaahinta dalkaasi Mareykanka ayaa soo qaatay qisooyinkan runtiina aad iyo aad u falanqeynaya oo la yaaban weerarka ilaa xadka ah ee gabadha Soomaaliyeed lagu soo qaaday dadka Soomaalidu ayagu isku mashquulsan runtiina waxyaalaha kale in ayagana lagu sii mashquulsan yahay iyagoo inaga waliba tabarteena aragna xataa kuraasta yaryar ee Soomaalidu meelaha ay ka helayso markii horena ay u dagaageen markii dambana ay wax ku barteen ay ka mid noqdeen waa loo qorilay waxyaalaha kale muhiimka waxa weeye dadka Soomaalida iyo dadka Carbeed ee qurbaha jooga way kala tageen runtiina dadka Soomaalida ee qurbaha yimaada badankoodu arintaas uma marxaati ma doonto gabdhaha Soomaalida waliba ha u badnaadeen xijaabkoodii iyo dhaqankoodii aad iyo aad baa loo karaa 89% ayay gabdhaha Soomaaliyeed xijaaban yihiin wax bartaan akhlaaq badan yihiin gabdhaha iyo ragga Soomaaliduna badankoodu waa rag saaxiib salaada badankoodu rag badan oo wanaagsan oo shaqaysta oo wax barta ayay yihiin shaqooyinka waliba xalaasha ay Soomaalidu ka shaqaysaa laakiin marka aad joogto wadamadan qarbiga dadka jooga ayaa garan kara waxaad arkaysaa meelaha khamriga lagu iibiyo gas stationada meelaha gaasta laga iibsado sigaarka meelaha shishada waxyaalaha xun oo dhan waxa u badan dadka Carbeed baa u badan runtiina waxa xusid mudan in dad badan oo xataa ay kamid yihiin dadka culimada ah ee Carabta ah ee waxgalka ah ee wax kala garanaya ay ku tilmaameen Soomaalida mucjiso galbeedka geeyay xijaabka oo runtii Ilaahay u soo diray Soomaalidu waxay soo muslimiyaan dad waxay dhax galaan dadka oo runtii ilaa xad ayay dadka ay la dhaqan yihiin ay diinta uga sheekeeyaan wanaag bay muujiyaan Carabtuna runtii waa loo yahay waxay dalalkan markay yimaadaan say isku bedelaan iyo say maryaha u tuuraan gabdhahooda inta badan waxay xidhaan saraawiil bay xidhaan runtiina inay gabdhaheena saa u aflagaadeeyaan waa wax aad iyo aad laga xumaado waxay aad inay gabdhahooda la hadlaan waxay aad inay gabdhahooda ay waaniyaan oo runtii ay dhaqanka inay san ka tagin ay u sheegaan inagu mar walba qof kasto Soomaali ah
runtii inaynu difaacno xaq baynu u leenahay runtiina waxyaalaha khaladka ah runtii waxyaalahaas oo kale aan in Soomaalidu ay baraha bulshada iska isticmaasho ayagu inay isku weeraraan oo isticmaalo uma weeraraan in afafka kale akhriyaan uma isticmaalaan in ay Soomaalida sharafteeda ku ilaaliyaan sidoo kalena waa arrin aad iyo aad looga xumaado in dadka Soomaaliyeed hadii qof qoraal yar soo qoro Soomaaliya 100 qof ay caayaan laakiin runtii marka qof Soomaaliya wax laga sheego ilaa xad gabdhihii Soomaaliyeed la marayo haatan aan waxba laga oran daawadayaasha qiimaha leh qaybta dambe wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda ha mogaanina